dhammaantiin ba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxay la tahay maanta war dhafoor buu ku yaalaayo cawaale siduu eg yahay baa nooga filan shaqadii la soo qabtay iyo baaxadda la ekeed. waxaan u mahadnaqayaa guddigii gacanta ku hayay dhismaha iyo u qareemidda garoonka cawaale inuu taaba galo. waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa marwacaasho geelle oo runtii u dhabar adeegtay iyo intii la shaqaysay. waxaan markhaanti ka ahay inay wakhti badan ay geliyeen. waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay dhaqaalihii faraha badnaa ee ku baxaya halkan laga sheegay oo qaybta ugu weyn ee lahayd dawladda Puntland oo way waajib ku ahayd iyo dadka iyo dawladda dhexe ee federaalka intaba. waan uga mahad celinayaa ciddii wax ku kordhisay inay ubadkooda iyo dhallinyaradooda iyo mustaqbalkooda siday ahayd si ka duwan oo ka qurux badan inaan maanta helno. runtiina waa wax ilaahay uu idmay waana guul noo soo hoyatay. waxaan rabaa marka ugu horraysa intaan hadalkayga u sii gudagelin waxaan insha allah aqbalnay oo bixinaynaa lacagta ku dhiban garoonka oo shirkadda Kibeko oo runtii ah shirkadaha waddaniga ah ee aanan ku koobsan inay ribix sameeyaan ee qayb weyn ka qaata horumarinta dalka mashaariic fara badanna dhisay contribution muuqdana ka qayb qaatay. waxaan rajaynayaa insha allah way ku fiicnayd sidii caasho sheegtay maanta inaan halka u dhiibno laakiin insha allah daynta dawladdu marmar waa la saluugaa laakiin tan si gaar aan u bixin doonna haddii la haydno. waxaa runtii mahad ballaaran ah in sida sharafta leh ee maanta loo agaasimay garoonka furitaankiisa wakhtiga ku filana la siiyey iyo sida loo sigay ammaankiisa oo ciidamada qaybahooda kala duwan iyo maamulka heer gobol iyo heer degmaan uga mahad celinayaa runtii inay maanta gaalkacyo oon ognahay marxaladihii ay soo martay maanta inay sidaan u damaashaadayso waa wax ilaahay loogu mahadnaqo. waxaan uga mahad celinayaa maamullada Puntland iyo Galmudug oo maanta mirahoodii ay hayaan oo bulshadoodii isdhex gashay oo dhallinyaradoodii ay faraxsan tahay oo dhallinyaradoodii ay mustaqbalka ay ku taamayeen ay maanta haystaan oo si wanaagsan ay u kori doonaan sidii ay mudnaayeen oo dhallinta kale ee adduunka siday u koraan si la mid inay la koraan si ay birri ka maalin u noqdaan kuwo dalkooda iyo dadkooda anfaca haddii la haydno. runtii fariimaha xagjirnimada ah ee halkan laga sheegay dabcan dawladda Puntland iyo Galmudug oo wada jira waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi ay soo afjarmaan. waxaan halka fariin uga diraynaa cid kasta oo isku daydo bulsho deggan oo xasilan oo nabdoon in ay disho oo barakiciso inay ku dambayn doonto cawaaqib xun adduunkana ay darxumo ku jiri doonto aakhirana ay naar mutaysan doonto. waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada la marin habaabiyey oo mustaqbalkooda lagu cayaaray oo xagjirnimada lagu baraarujiyey waxay la tahay maanta wakhtigii ashuunka lagu addimi jiray oo qofku uu warka hayn ma jirto. inkastoo laygu yidhi dhallinyarada ay haystaan smartphone-kii uma oggolo waxba lama socdaanba waxa halka dhacaya xataa maanta ma oga. taasaa nasiib darro ah laakiin waxaan rajaynayaa si kastoo lagu gaarsiin kara farriimaha lagu gaarsiiyo halkaas dayacaas ha ku dhuminina dadkiinna dhinac ka soo raaca bulshadiinna ka mid noqda daryeelka iyo dadka walaalihiina ay haystaan qaybtiinna ka qaata. waxaan rabaa haddii ilaahay idmo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dawladda oo wada jira inay u guntadaan inay nolol dabiiciya oo karaamo leh inay ku noolaadaan. maxaa yeelay qofka bini'aadanka ilaahay baa karaameeyey walaqad karramnaa bani aadama. haddaan annagu isdulloyno waa dulloobaynaa. waxaan rabnaa dullinimada inaan si qaadno inaan karaamaya sharaf ku noolaanno inaan dalkeenna xorriyad ugu noolaanno inaan farxad ku noolaanno inta qofka bini'aadanka uu maro inaan marnaan rabnaa haddii ilaahay idinka dhigo. taas waxay ku imaan kartaa isku duubni shacab iyo dawlad wada jirkeennaas inaan ka shaqayno ayaan insha allah rajaynayaa. waxaa halka ka cad nidaamka federaalka ee dalku qaatay mirihiisii baan haynaa.
miraha federaalku wuxuu ahaa wardadow isku tashada dalkiina dhista degaanadiina ha ka cararina nin walba waxa la rabaa tuuladiisa iyo gurigiisa inuu ku helo adeega uu u baahan yahay oo karaamo ku heli karo hadday tacliin noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd garoomo iyo hadday caafimaad noqon lahayd iyo hadday shaqo noqon lahayd waxaan rabnay inaan ka shaqeyno waa taas waxaan rajaynayaa waxa maanta halka qabsoomay waa dawladda Puntland iyo shacabkeeda isku tashaday iyo cid kasta oo gacan ku siisay iyadana ay soo dhaweynayso waxaan rajaynayaa iyadana garoonka Cabdullaahi Ciise mar dhow inaan sidaan kale ugu xafladeyn doono haddii la haydmo waxaan rajaynaynaa gobolka Mudug inuu astaan u noqdo soo kabashada dalka Soomaaliya midnimadii soo noqota xasiloonidii soo noqota degenaanshihii iyo walaalnimadii soo noqota horumarka oo loo jihaysto waxaan aad ugu mahadnaqayaa fanaaniinta oo mar walba baraarujin joogta ah siisa khaasatan kooxda mahuraan oo runtii tusaalaysa hadday dhalinyaro ahaan lahayd iyo hadday waayeel ahaan lahayd waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa Cabdicasiis Kilaaji heesta uu ku booriyay inay dadku shaqaystaan oo ay wax soo saarkooda la soo baxaan oo badahooda manaafacaadsadaan oo buurahooda macdanta ku jirta ay la soo baxaan oo inta hadda waa aragteen 800 kun baa 3 sano laga shaqeynay ururinteeda oo wax laga xumaado runtii annagoo nimcada inta la eegaysana waxay ahayd maalintii lagu riyoodaba inuu dhismay ahayd inay khasnada dawladdu ku jirtay ahayd inay miisaaniyadeenu ay ka fargaraysay ahaayeen bulshadeedu waxay u baahan tahay waxaan u baahannahay inaan wax soo saarno maxaa yeelay dakhli dawladdu ma hayso aan dadka ka imaan waxaan u baahannahay dadkeenu inay shaqaystaan waxaan rajaynayaa mashaariicda ballaaran ee gobolka Mudug ka socota iyo gobollada kale ee Puntlandba waxa ay ka timaadaa marka hore taladeeda iyo hindisaheeda dadka deegaanka dawladduna dadkii wax qabsanayay wax ku dartaa waxaan uga mahad celinayaa dadka hindisaha mashaariicda wax ku galka ah oo kan uu ka mihiisan yahay oo dekada garacad ay ka mid tahay hindisaheeda dadka lahaa iyo dawladdooda oo mar walba la garab taagan cid kasta wax qabsanaysa waxaan insha Allah hadalkayga ku soo gabagabeynayaa oo farayaa mas'uuliyiinta amniga ee labada maamul waxaan farayaa inay u diyaar garoobaan difaac dhab ah iyo dadkooda inay ku seexdaan nolol aan walwal lahayn waxaan rajaynayaa waqti dhow ilaahadankiis kuwaas inay dabar go'i doonaan waa ii muuqataa inay dabar go'ayaan waxa kaliya oo tusaale u ah dadku inay soo jeesteen oo fahmeen beentoodii diyaarna u yihiin inay dadkooda iyo dalkooda ka qaadaan dulinimada aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh